السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أد بعدين سلام يا سود وهذا صاحبي المركز أشوكتان يسي كستو أعظم مغلسان هالكني ومرتهاجة وحقرب كي فريق صاحب كي محي الدين بادي وأصلنا عبقري ليجن وحاوي وحول بقى شغل كلي دكتور كلي هذا دكتور مسكين بيقرب المحرر ماتنا المقال أنيقا إن كتشيرو أما رواية أما فيلم صعدة أو ليرة هذا حجو قيب أنك أحي وأنا رواينا in yar oo aniga aan ka jilayo raba inaan maanta reaction ka bixino run ahaantii waa qiso dhab ah laakiin macal directorka uma sheegin markii aan jilayay qaybtaas waxay igu ahayd qayb xiiso badan leh gadaal ayaan idinkaga sheegi doonaa qisada dhabta ah ee ka dambaysa inaan muuqaalkan aniga aan si gaar aniga i xiiso gelinayo si gaarna ii saameynayo waayo waa dareen ii gaar anigu aan qarsanayay laakiin aan jeclaystay inaan bulshada u soo bandhigo muuqaalka ila daawada kadibna waana falanqayn doonaa la socda waxay ku bilaabatay meel alaab wasakh iyo muus yar khafiif ah oo hoos u socda iyo qof imaamadii oo taagan ninkan waa tagay waa ku dayay ma fahamtay ninkayga waay hadda waa kala katay ilmaha isku dhasheen ilmaha qofta hadlaysa oo farxiya fiska oo qofta lala guursaday Amara waa hooyada Khadar waa hooyada hadda aniga aan ku jilay hooyanimada filimkan markaan jilayay qaybta waxaan ka ahay aniga qayb waarid ama wiil wanaagsan amal baan ka jilaya wiil dhalay oo wanaagsan laba wiil baan nahay labada wiil mid waa baari midna waxa waaye ciil xaafada marka maamada waa laga soo hadal baa soo laalaabanaya inay farxiya ku tiri ninkaaga baay ka qof yahay ninkaaga ilmaha iyo waxaad ka hadsan garanayo 20 jiro waa iiga soo raadsadaan ilmiya u baahan ma jirto baay hal isaw ilmo dambo maho 20 jiro waa iiga soo raadsadaan ilmiya u baahan ma jirto baay hal isaw ilmo dambo ilmaha 20 jiro waaye ayagu ha soo raadsadaan nin walba oo Soomaaliyeed markii gabar uu ka tago oo ilmo uga dhalo wuxuu yiraahdaa hayso markay wanaad ayaga soo raadsanayaan waa xaqiiq qof walba wuxuu aaminsan yahay ilmuhu inay soo raadsanayaan nin walba wuxuu leeyahay marka ani maxay galay ayaa ay korinaysa berina way soo raadsanayaan oo berina iyo isagoo in hebel u iimaanaya muuqaalka marka wuxuu gudbinayaa message dheer xigmad tira badan ku jirto hooyo iskala fanaaq shaqeynaa iska fariisaday أنا كشقينا ما waxaa soo galay wiilkii baarika ahaa soo galay meesha maamadii oo mashquulsan u yimid abada ma qabin hooyo wadaalinta iskala faway ma waxaan ku yiri hooyo murugadan way dhamaatay waxaan ka rabaa dadaal iyo karti ma ka rabaa waa wiil baari wuxuu isku dayaa inuu maamadii dhiirigelin u sameeyo maadaama maamadii ay disappointed u tahay ama dismoral u tahay inuu moralka maamadii dhus isku dayaa wuxuu rabaa inuu baarnimo qaab baarnimo abu jilaya wiilkan Khadar wuxuu jilayaa qof baari amal buu jilayaa marka wuxuu leeyahay maamada moralka ulis bus leeyahay maadaama laba saddex cisho aan niyad jabsan tahay guriga aan cunto laga karsan xaaladdu ay iska baalgeysan tahay wuxuu leeyahay maamadii caawi oo soo kici sasan ka rabaa hooyo daruur aan da'ayn iyo dirir hore kala wacan waa tan markii meeshaan socday waxaan qoraal geeraarkan hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo dhiban ku wajahan yahay waa u dhiirigelin hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo dareemaysa culays wuxuu u yahay muuqaal aad iyo aad u saameynaya inaad isdhiibin ilmaha korsato inaad noqotid qof adag inaad noqotid hooyooyinku way adag yihiin maasha Allah ayago dhan haddana saas oo ay tahay maasha Allah horta ilaahay hooyo Soomaaliyeed ma kasoo jeegto ha barwaaqayo ha karaameeyo cise iyo sharafna nolosha ugu dhameeyo gararka markaan sameynayay run ahaantii way igu adkayd inaan mataqaanaa waqti kooban soo saaro waqti dheer ay ku qaadatay waayo erey kastoo aan hooyo kusoo qaato ama aan ku dhiirigeliyo muuqaalkaas wuxuu igu noqonayay dareen gooniyu lahaa haddana way doorashada ereyada xataa igu adkayd waayo hooyadu way ka qiimo sarreysaa waxyaalaha aniga aan ku matali karo matalaad kuma samayn karo marka kolley waxun baa isku giirgiiriya waan oran karaa laakiin dareenkayga bay ka imaadeen calaa kulli xaal dibindaabiyo aabiyo dadaal hooyo kala roon waa run aaba markas dibindaabiyo waa aaba waa nin aabiyo dadaal hooyo kala roon dibindaabiyo aabiyo dadaal hooyo kala roon waa run
aabuhu dee waa nin dee ani asagu intaas qaban waa isfeeri karnaa ha laakiin hooyo marna kaa tegi maysa iyadu aaba wuxuu ku leeyahay wariyaa nin kuu sheegaa aniga intuu ku yimaada ku leeyahay wariyaa ayaantan waa shaqaysay si lacag anaa kusoo guursada hooyada waa daashay aabuhu marka damciisu ma dhammaanay ilaa 70 sano hadduu gaaro xataa marna wuxuu raadinayaa xaabadeeda kala kacsan laakiin hooyadu masha allah ilmaheeda waxaa laga yaabaa aabbo waxaa laga yaabaa aan ciyaalkiis arag 20 sano 30 sano iyo yar intuu ka tegay uu arag markii meelaan ay imaanayaan budiida kale bismillah marka aabuhu waxa waaye marka qaar waa saqataan aabba fiican waa jiraa exactly marka ereyadaan ku laabanayna insha allah horena ugu soconayna hooyo waa damal har weyno dadku wada harsanayaan waa damal har weyno dadku wada harsanayaan harac geedka ugu qabow geedaha damal waxaa la yiraahdaa ha waa sida noo sheegay muxiidiin geedka ugu harka qabow xilliga kuleyl ku jiro haddaa hoos taagto aad moodayso meel ka qabow dunida inaysan ku jirin geedkaas aa lahaa waa geed ballaaran oo jiq ah oo hoostiisu ay yacni hooskiisu wax yar qorax ma soo daynayo yacni waxa moodaa in mataqaanaa la dhisay camal damal baa la yidhahdaa damal har weyn hoostiisa xataa qoraxda hadday qabato kor ka soo qabato ma soo daynayo qoraxdii waayo waa dhir isqabsatay oo cuslaatay marka waxay soo daayeen hoos harac oo fiican oo la seexan karo marka hooyadii baan ku matalayaa damal har weyn waa damal har weyn oo hooyo dadku wada harsanayaan duruuf bay ku korisaa dayac bay la kulantaa mana daasha abidkeed ilmihii baan ka hadlayaa duruuf bay ku korisaa dayac bay la kulantaa mana daasha hadday maanta dhan duruufaysan tahay hadday dayac kusoo korinayso hadday rafaasan tahay mar warraba hooyo dhihimayso waan daalanahay maanta dhihimayso ma ku dhahayso waa daalanahay u dambeeyay seexinaysaa aroortiina iyada ugu horkacayso iyadaan u dambaysa ayadaan horkacayso weligeedan daal ma sheegato masha allah ilaah loo daa hooyo hooyo daacad baa tahay intaan dunida noolahay waxaan kula dul joogaa duco aan dhammaanayn dadaal aan khasaarayn hooyadu waa runtii mar walba ilmaha daacad bay u tahay si daacad u korinaysaa qalbigeeda ay korinaysaa waxba hayn xataa waxay leedahay waxba hayaa ku leedahay hooyo waxbaa ku haya wallahi iyada weliga hooyada ima or wax ma hayo markas waxay ku leedahay waa haya waxbaa la helaya waa u baahan tahay haddaa xataa dahayn meel ay keenta wayda keenaysa hooyo daacad baa tahay intaan dunida noolahay waxaan kula dul joogaa damiir aan nusqaamin damiirkaygu yacni marraba nusqaami maayo aan taagana duco aan dhammaanayn dadaal aan khasaarayn damiir aan nusqaamayn duco aan dhammaanayn dadaal aan khasaarayn damiir aan nusqaamayn duco aan dhammaanayn dadaal aan khasaarayn damiir aan nusqaamayn intaan dunida noolahay waxaan kula dul joogaa duco aan dhammaanayn damiir aan nusqaamayn yacni hooy inta aniga noolahay yacni waxaan isku dayaa maamadii inaan qanciyo kiciyo oo qalbigeedii soo celiyo oo aan idhaahdo yacni inaan baari ahay tuso oo ayadii aan u noolahay inaan yacni kiciyo maamadii oo waxaan saaran iyo culayska isku dayaa absolute hadduu naga daldoorsaday aabbo duug xusuusihii hore hooyo dami ciilka kugu shidan hooyo dibi socod iska ilow hooyo yacni odaygii hadduu naga tegay hadduu naga daldoorsaday aabbo duug xusuusihii hore hooyo yacni iska ilow xusuusihii hore oo yacni waxaa iska daydaa inaa is ilowsiisid haa kole ma iloobisid dee qof dhaawac ku yaalla waa tahay laakiin isku day hooyadii baan kicinayaa moogta danta guudi waa horumar danta guudi waa horumar anana kaama daallo diirkaad dhashaan nahay da'yartaad dhashaan nahay isku duubni iyo guul baa inoo balan hooyo macaan farxad baan ku horjeynaya hooyo macaan cabsidaan iyo guuldarradaan waxay guuldarradu noo hogaaminaysaa sida aan haddaan ku soconno oo aanan danaheena raacan waa dadka waa ka hoos dhacayna hooyo macaan waan ku jeclaa hooyo adiga oo ani arag baa i jeclaatay anoo adduunka jooga in aan ku jeclaado hooyaday ayadoon i arag i orin i taaban bay i jeclaatay marka hooyo markastoo aan ka hadlayo wallaahi aad iyo aad baan dareenkayga gudaha ka dareemahaa waa qof keliya oo jacaylka dhabta ay qabto adigana sidoo kale hooyada waa qof keliya jacaylka dhabta ku qabto ummadda dhan hadday ku nacdo qof walba hadduu ku naco qofkaan ku nacay hooyada jacaylka dhabta la sheegaya waa ku jecelahay waaw hooyo unbaa adduunka wax jecel jacaylada kale waa dhammaadaan waxaan kala hawa iska waqti kooban laga yaaba ay noqdaan adiga oo aan arag
baa jeclaatay anoo adduunka joog inaan ku jeclaada qasab waay mid baa ku jira hooyo adiga oo aan erag baa jeclaad marka anoo maanta adduunka saaray inaan ku jeclaado ku ilaaliyo hooyo waa saxdii baan yani waa dhiirigelin ha ereygaa marka wuxuu noqonayaa in maamadii ay dareento in wiilkeedu u wanaagsan yahay oo yani dhiirigelinayo ay ka kacdo ha garab taag aad baan ugu mahad celinayaa directorka filimka Abukar Mahdi qaabka uu mataqaanaa music yarka dareenka wada u saaray waa cajiib waa very talented waa ninkaas maasha Allah waxaan kaa rabaa babooskiisii maanta anaa buuxinayo waxaan kaa ballan qaadayaa inaan noo shaqeeyo dhaqaalo noo keeno aniga aan reerka hormariyo hooy macaan halkaas marka ka xumaad xaalad yani waxaan isku dayay inaan dhaho wax walba anaa qabanayo yani yani waxaan dareemay inaan maamadii ay dhiban tahay inaan xataa jaamacad aadamay ilaa hadda iyadoo dhibaataysan waxay ku leedahay maya jaamacaddii taa iga sheegi mitir jaamacaddi waa wadaysa يعني هاي مرة بهذا حتى قاعد يسنت هاي كايل ميس إنا وحبرش الآن النقطة يعني هاد غير كارت غير كارت ولو عرفت إن يضو حتى باهي كل ما نسى إن ذاك أكون رئيس هذيك jaamacadna joojiyo may jaamacada joojina igada jaamacad ma joojinaysid keerka ka soo shaqeynaa naagaha ficayga oo dhan keerka ka soo shaqeeyaan way part time shaqeyna ha part time ayo hooy laakiin balan iga qaadina oo joojin over my dead dimashadaydan ka xigaa bay taagan tahay inaa jaamacad ka hadhi body hooyo anigu ma haysan jaaniskan iyo waxbarashadan ma fahantay idinku jaanis baa haysatiin waxbarashadii meeshaad doontaan aad ka dooranaysaan annaga macalinka dugsiga faamiliga markay 5 caruur dhalaan 3 markii la awoodo labada kale gurigay joogi jireen kuwaasaan ku jiri muhiimaddu waxa waa in anagu noolaano aabana iska ilowno waayo wuu naga tegay balan iga qaad hooyo markaas in saxay balan hooyo macaan inta noolaha anaa ku shaqeynaa yani chilling way laaw toos ha chilling way laaw wala darta 20 sano maxaa u gaar in aad ku shaqeeyo wax ku qabto ciilka qaado balan anna ma baahaba inaan isku mashquuliyeen annagoo dhan naga dhaqaaqay hooyo ma baahaba inaan isku mashquuliyeen annagoo dhan naga dhaqaaqay hooyo waa qosashay waa faraxsanahay waan qoslayaa maahane weliba sheekooyinkeena iyo farxadeena ma arag farxadan balan baan ka qaaday dib dambe ma dhacayso hooyo alaabtaana hadda waxaan rabaa inaan hagaajiyo ama hooyo anaa dhaqaay iska dhafan yaa hooyo anaa dhaqaay ka wareeg ay hooyo waayahay run ahaantii maxay kula tahay dareenkaagseeya wallahi my godness shillinkaas markasee kulahaa qaab ahaan shilliin iyo erayo iyo xaalad situation isleh bay ahaayeen basically erayada iyo qaabka loo jilay musica la saaray qaabka loo duubay qaabka emotionalka ay u jilayaan labada qof ee matalaya absolutely perfect way ma sha Allah marka message-kan wuxuu gudbinayaa yani message noocyo badan taabanaya wuxuu gudbinayaa 3 message oo ugu waaweyn in raggu joojiyaan dumarka inta ka dhaqaaqana dhaaya ilmuhu aanu iimaanaya bari aan sugayaa sidoo kale in dumarka aan culayska la wada saarin alcaawi sidoo kale inuu ilmuhu uu waalidkii u naxariisto oo baari u noqdo hawsha nolosha dunida la qaybsado si uu isaguna aakhiro u liibaan وصدق المي هذا ما أنت المها عاوز هو إذا عورت عاوز المها قلنا كعاون هذا كعاون هذا كتكتو ما أنت هذا نقول هذا شكاكتي what goes around comes around وحي هذا ما أنت سمي سيد وارد سمي سيد برنوك ما وارد كا هل سؤال كودي في الانتاج أريد يا كل قري كل جواب قري مسقف كل قري ما يريد رنتي هذه كل جواب ها أنا كل جواب قري حالة أن أنت سكر الله يجانا dadka qurbaha ku nool aad xaaladdan ugu badan tahay hadda jilisay waan xal lagu soo wada koray lagu soo wada koray horta nolosha boqolkiiba 80 waa lagu soo wada koray wadanka dadka jooga badankooda haddana dadka wadanka qurbaha jooga ilmaha dumarka waa looga tagaa then sanadiyaa looga maqnaadaa uu imaanaya oo dhahaya soo magaalo kale iska tagaya halkan qurbaha aad ugu badan tahay waa xaalad kale oo qofkii duubayay uu arkay dad badan oo ilmo lagu dayay abukar maanta nala duubayay barnaamij oo naga duubayay والله إلهي قال سينا واقير هذا فيني كودوب عبار بتيش سوقات كتير والله ويا يعني قابكي دوبني يسيد عندها يعني يسيد أولاك يعني إلا واحد مركز عادي وجلس أو لو شيء مركز عادي أي قلبه كم ذاك الله بموت يعني واحد يدك إما هذا تشيلين كاس وحقوقها وهلك تشيلين أو أنا عن قلبي كي كشري وحال أرقته يوحال مقشوك على الله وحال أرقته كعنت هذا وجه ده
laakiin qalbigaaga ma aragtid qalbiga waad sawiri wax ka kartaa badan buu sii deynayaa waxaa laakiin gacanta tos baa horta waad sawiri kartaa shan farood bay leedahay jajicmeeya bay leedahay Haa. marka wax la walbo arag la arko waxay qisada ka dambaysa ereyadan run ahaantii waxa weeyaan dee qof walba hooyo ay soo karisay keligeed aniga aabahay allah u naxariisto aniga aan arag buu dhinta weligii aabahay ma arag marka qisada dhabtaa ka dambaysa waxa waaye dhibka ay hooyo soo martay iyo dhibka aniga shakhsiyan ahaan ay la soo martay hooyaday maamada keligeed masha allah baa kow ka ahaa inaan muuqaalkan si gaar xiisa igu yeesho isla anigii duubay baa markaan daawanaya xataa qiiro dhan kalena in muuqaalka komitiyada marka filimka qaybtiisa marka la eego qofka ugu badan laga hadlayo adiga iyo maamada filimka jiray imaamadaha qaybtiina ugu badan qaybta komitiga ugu badan lagu qoray hadda qof reactions ka fiiga kala soo baxaya xalay baan daawna moogta oo komitiyada ugu badan adiga iyo maamada kula jiraysa ku qoray wallahi marka hooyadu waa jacaylka dhabtaa ee adduunkan saaran hooyadu waa nolosha dhabtaa ee adduunkan ka jirta hooyadu waa qofka kaliya oo iyadoo aan ku arag ilaa goolka ugu horeeya kula bilowday ilaa goolka u dambeeya ay kula dhaliso kama harayso kaa harimayso waa hooyada jecel xataa haddaad qof xun tahay inaad guul gaartid waa hooyada jecel haddaad dadka haddaa u lidatid inaad mataqaanta ka saraysid inaad boqor tahay adigu waa hooyada jecel xataa haddaadan weliga waxba baran aad jaamici u tahay waa hooyada haddii aad dadka dhan xumaysid aan marnaba aamin inaad qof xun tahay masha allah wax lagu qiyaasa ma jirto maamada wax lagu qiyaasa hooyo hooyo I love you so much masha allah toman loof hal loof maa toman yaalo kuman yaalo aada ku jeclaa hooy maa anaga la tukanay hadda waa emotion baan xaaladayadu waa wagash weye wagash wallahi xaqiiq waa asxaabta qaaliga ah aad iyo aad idin salaamaya qof walba oo muuqaalkan daawaday ama arkay bal falcelintiina aan ogaada insha allah iyo sida aad mataqaanaa adinkuna aad dareenteen markaad daawateen isla hadda oo reaction ka bixina waxa aad dareemi kartaan iyo wixii aad ka aragteen nala wadaaga qaybta commentiga barnaamijka share gareeya like gareeya oo barnaamijka wax aad u xiiso badan haddii aad ka share gareyn weydo dee ku kala share gareynaysa maxay yihiin هذا اللي سلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيح قالي أنا وأمها العلنا يا المحيدين thank you very much brother إنا وقتي إلى غلط إلى سمي برنامج كانوا كأمها العلنا يا all the best أصحاب قالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته